si aan u ogaano aqoonta carruurta Soomaalida ee ku dhalatay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota magaalada Minneapolis xaafadda Cedar ay Soomaalida ugu badan tahay ayaa TV-ga caalamiga Universal TV qaybtiisa North America waxa uu weydiiyay su'aalo ku saabsan isboortiga iyo taariikhda diinta Islaamka. Dhammaan carruurta aan weydiiyay oo da'deedu u dhaxayso 8 jir ilaa 14 jir ayaa waxay ku dhasheen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee ugu fara badan tahay loo yaqaan Cedar Riverside dadka cadaankuna ay u yaqaanaan Muqdishadii yareed. Ciyaaraha basketballka iyo soccerka kee daawata? Basketball. yaa ku guuleystay basketballka NBA-da? Golden State. Golden State. Ma taqaanaa 5 ciyaartoy oo Golden State u ciyaarta? Magacyadooda? Stephen Curry, KD, Jamal Black, Jamal Green, Klay Thompson, and Andrew Iguodala. su-aashaasi wiilkaasi uu saxay 5 ciyaartoy u ciyaarta kooxda Golden State. su-aashaan rabo inaan ku weydiiyo waxaa waaye Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa ma taqaanaa magacyadooda? ما قدي عبد الرحمن kooxda u ciyaaro Kevin Garnett kooxdee waay? Minnesota Timberwolves. imise ciyaartoy ayaa Minnesota ka taqaan? 5. 5 ii kala sheeg. Andrew Wiggins, Zach LaVine, Ricky Rubio, Shabazz Muhammad, and Kevin Garnett. shantiba uu ka jawaabay waa oo ciyaartoyda kooxda gobolka Minnesota. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam 5 ka mid ma taqaanaa? Hamza, Abu Bakr, Bilal. أنت كلام أخاني. هذا ما حسنتها. حسن. حسن waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ciyaartii ugu dambeysay basketballka waa daawatay Soomaa? Ha. yaa kaalinta labaad galay? Golden State and Cleveland. Cleveland kaalinta labaad gashay Soomaa? Ha. 5 ciyaartoy Cleveland u ciyaartay. LeBron, Kyrie, Kevin Love, Tristan Thompson, and J.R. Smith. shantiba wuu sheegay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam magaciisa oo saddexan ma taqaan? No. ma taqaan? No. su-aashii waa garan waaye. dhinaca carruurtaas waa carruurta ku korta dalka Mareykanka waxaan weydiinayay su'aalo caadi ah TV oo TV-ga ma jecli. okay su'aal waxaan ku weydiinaa dhinaca islaamka ah. xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam ma taqaanaa? كل ما خانه intaa ka taqaanid ها ii sheeg. عاشا caasha, خديجة khadiija, مريم نونا maryam. okay فاطمة su'aal kale aan ku weydiiyo Taysiya Yeah. magac Mareykan uu leeyahay. Taysiya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo basketballka iyo soccerka kee daawataa? Basketball. basketballka ciyaartii semifinalka waxaa isugu soo baxay ciyaartii finalka waxaa isugu soo baxay Golden Stadium Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. waxaan rabaa inaad ii sheegto yaa ku guuleystay? The Warriors. The Warriors ku guuleystay Golden State. Ha. MVP yaa qaaday? Kevin Durant. Kevin Durant. ma taqaanaa 5ta ugu horeysa Golden State? Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Stephen Curry. The 5th one is halaa ku dhimay. Zaza. Zaza. Yeah. okay su-aashaasi uu ka jawaabay. waxaan rabaa su'aal ku saabsan dhinaca diinta inaan ku weydiiyo. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam abtigiisa ma taqaan? No, I Nabi don't. Maxamed abtigiisa ma taqaan? Nope. okay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa ma taqaanaa? Yeah, I know Ali. carruurta Nabi Maxamed Yeah, haye Ali Abbas and cali cabaas. yeah, I don't know. aad u mahadsan yahay cali cabaas. waa carruurta ku dhalatay dalka Mareykanka ee ku nool xaafadda Soomaalida ugu badan tahay Cedar. anigoo maanta weydiinayo su'aalo dhinaca diinta iyo noqonada ciyaartoyda haddii kaleba way garanayaan laakiin marka la weydiiyo dhinaca diinta islaamka boqolkiiba boqol ma garanayaan. marka waxaad ogaanaysaa carruurta ku nool dalka Mareykanka inay xoogga ay saaraan halka ay ku nool yihiin. magacaaga? Khalid. Khalid. NBA-da
yaad cayaartooydaba ugu jecesha basketball. basketball cayaartooydee aad isleedahay NBA waa ugu cayaar fiican yahay As a best player right now, LeBron James. oo lebron james afarta nin ee la gashay garoonka magacadooda ma taqaan Or his teammates. yaa Or how about Kyrie, Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson. ma taqaana asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam shan ka mida Ha. ii sheeg Like who or let's injira. nebiga ha calayhi How Hamza, Bilal, xamsa Bilal, bilaal and waxaa kaloo ka mid ah Umar magaciisa waa kasaa laakiin ninka oo hero-ga camal ah magaciisa ii sheegay waxaa waaye Umar waa Abubakar abubakar iyo hal qofka bas aga dhiman labaa kaa dhiman laba wasako labada kale waa Khalid bin Walid ma ka tirsan yahay adiga le ii sheeg adiga inaa ii sheegto anigu ma kuu sheegayso jawaabta shan ka mid asxaabtu waa kumaan kuna ahaayeen waxaa waaye afar saddex saksa okay su-aasha kale aan ku weydiina waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu salaam carruurtiisa ma taqaanaa carruurtu dhalay nebiga may ma garanaysaa xaala magacyadooda ma kasay ma garanaysa ha aada u mahadsantahay saaq cabdisaaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo basketballka iyo soccerka kee aad u daawataa basketballka tiimkee taageertaa Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers ma taqaanaa shan cayaartooy oo u cayaaray kooxdaas Yeah, LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, Tristan Thompson, and Kyle Korver. shantiba uu ka jawaabay waa sax su-aashaan raba inaan weydiiyo waxaa waaye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa ma taqaanaa maxaa ka wada su-aashaas nebi carruurta maxamed carruurtiisa haa waa garanaya haye ii sheeg magacyadooda ma xasuusto maxay haa aada u mahadsantaa haddii uu su-aasha u jawaabi lahaa wuxuu heli lahaa $100 ma uusan helin waxaan rabaa inaan Abdullahi. cabdullaahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo basketballka iyo soccerka kee aad u daawataa basketball tiimkee taageertaa The Cavs. Cavs ma taqaanaa shan cayaartooy oo ka mid a kooxdaas Yes. ay ii sheeg shanta cayaartooy LeBron James, Kyrie Irving, J.R. Smith, Tristan Thompson, and Kevin Love. shantiba uu ka jawaabay kooxda Cleveland oo aad u support garay marka waxaan rabaa su'aal ku saabsan dhinaca diinta in aan weydiiyo oo ah waxaad ii sheegtaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa shan ka mid a Khadija, khadiija Hawa. I forgot. I don't know. su-aasha waa u garan waaya faatax madaxweynaha dalka maraykanka ma taqaan Somalia. madaxweynaha maraykanka USA Donald Trump. madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. farmaajo magaciisa saddexan maxamed waad Abdi. waa garan waaya su-aashaasi munasar intee ku dhalatay Minnesota munasar waxa ku dhashay Minnesota waxaan rabaa inaan weydiiyo Soomaaliya xaggee ku taallaa Africa. ka dhinacee South. ma taqaanaa isteedyada dalka maraykanka ma kala taqaanaa saddex isteed oo maraykan ii sheeg oo dalkana Minnesota, Minnesota California, Texas saddexda uu ka jawaabay saddex magaalo oo Soomaaliya ka mid ah ma taqaan Hargeysa, Muqdisho, Jigjiga. ma uu ka jawaabin muqdisho iyo hargeysa ayuu gartay hadduu ku dari lahaa su-aasha ama gaalkacyo wuxuu heli lahaa $100 aad baa magaca Ridwan. xaggee ku dhalatay ama Nairobi. ku dhalatay ma taqaanaa magaca nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam Nabi Muhammad. magaciisa Muhammad haye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. maxamed Abdullah. cabdimudalab waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cayaartooyga ugu caansan dalka maraykanka oo basketballka dheela magaciisa LeBron James. magaciisa saddexan ma taqaan LeBron Michael James. ma taqaanaa coachka kooxda Celtics muxuu ahaay aada uma suge cabdicasiis magacaaga cabdicasiis intee ku dhalatay Nairobi. Nairobi ku dhalatay Nairobi xaggee ku taallaa Kenya. Soomaaliyana xaggee ku taallaa
Africa. Afrika ka dhinaca South. South Dhinaca. Soomaaliya South may ku taala Kenya iyo Ethiopia dhinaca ku taala oo ku xigta. okay aada u maasanta xaafadana degantaa Cedar Soomaa meeqa masjid ku taala Saddex. magacyadooda Darul Hijra, Daarul Hijra Shafi'i Shaafici iyo Darul Qalam. Daarul Quba Quba ha. Daarul Quba saddexdood ma tagtaa Ha. ciyaartooyda okay ciyaartooyda aad ugu jeceshahay ciyaartooy waa Soccer. basketball I don't watch basketball. soccer ma daawataa Ha. okay soccer teamkee taageertaa Manchester United. Manchester United ma taqaanaa afar ciyaartooy u ciyaarta Manchester United Ah. magacyadooda Ibrahimovic, aha Rooney, aha Pogba, aha De Gea. ma taqaanaa afar ka mid ah asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam Abu Bakr, Uthman, Umar, Ali. maasha allah wiilkani su-aashii aan weydiiyey wuu kaliya aan weydiinayay caruurta Soomaaliyeed ee ku dhalatay dalka Mareykanka caruurtani waxay ku nool yihiin xaafadda Cedar oo ah xaafadda ay ugu tirada badan yihiin caruurta ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota caruurtani ayaa waxaan weydiiyey su'aalo ku saabsan bal inaan weydiiyo aqoonta ay u leeyihiin diinta islaamka iyo aqoonta ay u leeyihiin dalka Mareykanka ay ku nool yihiin boqolkiiba 99 waxay ka jawaabeen halka ay ku nool yihiin aqoonta ay u leeyihiin hadday noqon lahayd ciyaartooyda iyo hadday noqon lahayd tiimam ka dhisan dalka Mareykanka halkani waa xaafadda ay ugu tirada badan yihiin xaafadda Soomaalida ee ku nooshahay Cedar xaafadani ayaa waxaa degan qiyaas ahaan 20,000 oo Soomaali dad lagu qiyaasay iyadoo xaafadani calaamad